codkaas aad maqlaysaan laga yaabay qaarkiin inaad durba garateen waa rah ama rake oo xiliyadan oo kale dhex xeegaaga goobaha biyo fariisadka ah laakiin nin ayaa dhaqaale xoogan ka sameynaya oo u samaystay xero uu ku tarmo. xasan duleymi oo Suuriya u dhashay ayaa bilaabay mashruuc weyn oo lagu dhaqanayo raha kadib markii uu dib ugu soo laabtay dhulkii uu u dhashay ee ku yaala miyiga gobolka Xama ee dalka Suuriya. Talabadan ayaa isku day uu ku doonayo inuu dib ugu soo nooleeyo waaxdan oo dalka aad ugu barwaaqaysanaan jiray kor intaysan istaagin markii dadkii deganaa dhulka barwaaqada ah ee Saxlul Qaab ay ka barakaceen guryahoodii intii uu socday dagaalka. Duleymi ayaa wareysi uu siiyay wakaalada wararka ee Reuters ku sheegay in khibrada ku saabsan barashada iyo korinta raha uu kasoo minguuriyay dalka Turkiga halkaas oo markii hore u qaxay. xasan duleymi wuxuu intaasi ku daray inuu garoonkan dhexdiisa ka shaqeynayay xilliyadii u dhaxaysay 2014 ilaa 2019 markii uu dib uga soo laabtay Turkiga. wuxuu ogaaday in deegaanka Saxlul Qaab ay rahu aad ugu badan yihiin halkaasna ay ka dhalatay fikradda ah inuu halkan ka aasaaso beer u gaara taranka raha. wuxuu xusay in muddo sanad gudaheeda ah uu ku guuleystay inuu dhiso beertan si uu kordhiyo wax soo saarka isla markaana uu u daboolo baahiyaha suuqa gudaha iyadoo hadda uu hiigsigiisu yahay inuu caalamka kale u dhoofiyo. Duleymi wuxuu shaaca ka qaaday inay la soo xiriireen dhowr shirkadood oo laga leeyahay dalalka Lubnaan iyo Turkiga tan iyo markii uu mashruucan bilaabay kuwaas oo raba inay ka iibsadaan raha maadaama loo isticmaalo cunto ahaan maqaayadaha dalalkaas. dhanka kale Sawsan Al-Xamuud oo ah madaxa waaxda badbaadada kheyraadka dabiiciga ee agaasinka deegaanka ee gobolka Xama ayaa sheegtay in rahu ay door weyn ka qaataan la dagaalanka cayayaanka dhibaatada ku haya beeraha iyo dhowridda isku dheelitirnaanta deegaanka. waxay sidoo kale tilmaamtay muhiimadda ay rahu u leeyihiin silsiladda cuntada ee deegaanka qoyan iyo faa'iidada dhaqaale ee laga heli karo marba haddii loo fuliyo qaab cilmiyeed iyo mid nidaamsan iyada oo la raacayo shuruucda deegaanka ee loo baahan yahay.